Hay'adda Najdah Organization for Relief and Development ayaa maanta gargaar gaarsiisay qoysas barakacyaal oo ka soo qaxay dagaaladii dhawaan ka dhacay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo Soomaaliya, kuwaas oo xeryo ku meel gaar ah loogu sameeyay deegaano ka tirsan Mandheera. Iskuulka Barwaaqo 160 qoys ayaa ka faa'iideystay gargaarkan oo isku dhafa, halka 160 qoys oo kale gargaar lagu gaarsiiyay iskuulka Duse ee ku yaala xaafadda Busle. Hay'adda ayaa biyo-dhaamin u sameysay qoysaskan ku nool saddexda xero ee barakacyaasha ee ku yaala Mandheera, kuwaas oo kala Barwaaqo, Duse iyo Shashafey. Maalmihii la soo dhaafay, Cabdirashiid Ciise oo ka tirsan hay'adda Najdah ayaa sheegay in gargaarkan uu qayb ka yahay howlaha gurmadka ee hay'addu ay ku taageerayso dadka nugul ee barakacay. Waxa uu xusay in qoysaskan ay u baahnayeen gargaar degdeg ah maadaama ay ka soo qaxeen xaalad adag. Magacayga waxaa la dhahaa Cabdirashiid Ciise ku magac dheerahay. Marka maanta waxaan imaanay iskuulka Barwaaqo oo u imaanay in aan markaysa dadkii soo qaxay aan raashin siino. Raashinkaas oo markaysa aan ugu talagalnay dad oo gaaraya 160 ugu talagalnay ayaan maanta bixinaynaa. Horena ma arkaysa biyaan u soo shubi jirnay intii ay joogeen dadkana dad soo qaxay waay oo ka soo qaxay meesha la dhahay Beled Xaawo. Beled Xaawo iyo Mandheerana waa saaran maadaama dadkii ay soo qaxeen oo iskuulaha magaalada Mandheerana ay joogaan ayaan markaan ugu talagalnay in aan markaysa raashinkaas maanta oo 160 qoys in aan siino ayaan ugu talagalnay. oo raashinkaas aad arkaysan gadaashii yaallo ayaan ugu talagalnay saliidoodii oo wax walba ay isku jiraan oo sokortii iyo burkii booshadii iyo bariiskii iyo saliidoodii dhamaan ay isku jiraan ayaan ugu talagalnay in aan ma arkaysa qoyska sayti 160 qoys ayaan ugu talagalnay. Dhibkeena waa jira maadaama dhibkeena uu jiro dagaalkii Soomaaliya ka socday uu jiro oo Jubbaland iyo dawladda sare ee Soomaaliya ayaa isku dagaalihayna xuduudka Mandheera marka iyo Soomaaliya. Marka maadaama dadkii ay soo qaxeen waa dad nolol u baahan, waa dad ma arkaysa meel degan u baahan, waa dad biyo u baahan, waa dad bini'aadan ah oo dadkii meesha degnaayo anaga camal ahayna rabaan. Marka ayaan daas daraadeed ayaan ma arkaysa ugu talagalnay in ay wax helaan oo raashinka sayta maanta yaallo oo u jeedaan dhamaan lawada arki hayo ayaan ugu talagalnay 160 qoys in aan ku deeqno oo ugu deeqno. Dhanka kale, Chiefka weyn ee Barwaaqo Location, Chief Cumar ayaa waxa uu ka hadlay bixinta gargaarkan. Waxa uu ku tilmaamay tallaabada hay'adda Najdah mid muhiim ah oo wax weyn ka tari doonta nolol maalmeedka dadka barakacyaasha. Magacayga Cumar Maxamed Isaaq, Senior Chief Barwaaqo Location Central Division aan ahay. maanta waxa waaye Najdah noo keentay raashin oo qaxooti oo maanta la siinaay 160 qoys ayaa la siinaay raashin oo ma aragtay hadda meeshan gadaashay ku yaalaan lagu habeey. Marka waxaan u siinaynaa macnaha inay lagu kaalmeeyo hay'adaas mahad u celina Ilaahay mahad iskale, mahad kale Najdah iskale oo noo keentay ma aragtay dadka inoogu soo dhiibto oo soo gaarsiiyeen. waa kan haddaan siinaynaa oo gadaashay diyaalaan waa marka mahadaan u celinaynaa anigoo siinaa Chief Barwaaqo waxaan ugu celinaynaa macnaha dadka cabbaar la soo qariibnay muddo badan maalinta dagaalka bilowday inta ka dhaxdooda waan wadnay wax baan u keenaynay. Alxamdulillah hay'ado badan iyo culimo badan ayaa ma aragtay nagu kaalmaysay, biyo waa u shubnay, nabadgelyadooda waa fiirinay, ma aragtay waana xalinay. marka Ilaahayna waa nala xalli alxamdulillah. laakiin hay'adan waxaan leenahay hawaarta ha socoto waa u duceynay hay'ada Najdah ay noo keentay raashinka. Ibrahim Nuur Cabdiraxmaan, warbaahinta Daawa, magaalada Mandheera.